Ciyaarta Soomaaliyeed filimkan waa filim murugo leh. Fadlan channelka subscribe saar si aad ula socoto filim badan. ka imaaday banaadir waxaan imaaday isgooska Zoobo isku xiran aad iyo aad isku xiran waxaan isdaba joognay baabuurka hadda aad u jeedin oo meesha ku holcaayo raashinka sido baabuurka gadaashiisaan joogay baabuurkii waxaan u sheegtay inaan dhinac baaso waan mooday waxaan ku leexday laamiga laamiraha Zoobe aadan cadde mar alaale markaan gooladkii aadan cadde aan galay qaraxi wuxuu iskaga daba dhacay maxaa ka galay ilaa iyo xaafadda in la gariirto bajaajkii baakintay waan soo orday haddii aan soo orday waxaan imaaday meeshii dhibka ka dhacay inta aan soo gaarna waxaan arkay isbitaal aadan cadde nin caloosha ay ka baxsantahay beerkiisa banaanka taalo gabar madaxa foqsan adiga waxaan indhahaada aan qaba karin oo aad iyo aad ugu calool xumaanaysa ayaan la kulmay wallahi gaariga qaraxa dad waxay ku leeyihiin kolay sida hadda afku ugu badan yahay gaari weyn inuu ahay laakiin magaciisa ma sheegi kari gaariga laakiin inuu weynahay oo weyn yahay ay maxay caddahay qarax hadda u jeedin meesha qarax ku dhacayna qarax yar ma kolay ilma aan gaarin inuu yahay aagaan oo dhan uu barbaray ina hadda Zoobo ay joogto ina banaadir joogto ma kala saari kartid calool xumo aad iyo aad u weyn ayaa meesha ka dhacday dadka iyagoo nafta ay ku jiraan oo dhaawac ay yihiin ayaa dhagaxinta hoosteeda ay ku jiraan qaarkood iyadoo dhintay meedkii aan la kala aqoonin laamiga Zoobo markaan soo istaagay hadda waxaan arkay calool kaliya oo meel taalo madax kaliya oo meel yaalo gacan kaliya meel taalo lug kaliya oo meel yaalo marka dhibaato aad iyo aad u xun indhahaada ay saqabo karin ayaa meesha ka dhacday meedadka wallahi kolay sidaan aniga haddeertaan indhihii aan ku arkay 20 ilaa 20 iyo ka badan wixii haddeertaan qarsoonna aan la sheegi karin xataa 20 kuma jiraan inta xisaabtooda aan la sheegi karin inay rag yihiin inay dumar yihiin inay caruur yihiin wax la sheegi karo male waxa ka sii baabuurtii hanti iyo naf intaba meesha way ku baabaaday marka waxaan leeyahay ilaaha gargaarka ummadda islaamka shacabka